runtii waxaa halka uu dhigan uu yahay war la heliyaaba tala la heli dabcan laba arrimoodba waa muhiim qofkii raba tala inuu gaalo xog buu u baahan yahay qofkii raba qorshe inuu sameeyana wuxuu haysto u baahan yahay sida maxamed xasan barre halka uu ka sheegay wixii aad haysatid baa la qorsheeyaa laakiin xaaladda hadda aan ku sugannahay guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan Puntland runtii waxaa lagu ammaani karaa Puntland muddadaas ay soo shaqaynaysay horumarka ay ka gaartay inay haykalkii dawladda ay dhisto waxna ka qorshayso maanta waxaan halka u joognaa daahfurkii saddexaad ee qorshaha horumarinta Puntland dabcan dadku inay isaga khaldamaan baa dhici karta Puntland qorshayaal badan bay leedahay kan waa qorshaha horumarinta qorshihii siyaasadeed maaha qorshaha amni ma aha waa qorshaha horumarinta marka waa uu ka duwan yahay guulaha badan oo hadda Puntland soo gaartay inta badan qorshe siyaasadeed baa hagaya dabcan marka laga hadlaayo horumarinta ama waxyaabaha la taaban kara ee horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha bay inta badan xooga saaraa socio-economic development sectors halkaas runtii waxaad ogtihiin Puntland waxay aad uga tiirsan tahay deeqaha ay hesho ay ku salaysan yahay inta badan laakiin qorshahan sida wasaaraddu caddaysay siyaasadda dawladdana ka mid ah waxaan rabnaa inaan kuwii hore wax ka bedelno oo ku darno qorshaha qaybta suuragalka ee dalka ka imaanaysa qaybtaasoo laba meelood ka imaanaysa inuu qorshahaas ku talagalkiisa qayb ka midna dawladda ka yimaado qayb ka midna oo private sector ka yimaado ama ganacsatada ka yimaado waxa aan u soconno ugu dambayn waa inaan dadkeenna adeegga ay u baahan yihiin aan siino si adeegga ay u baahan yihiin dawladda u siiso dawladdu waxay u baahan tahay dakhli ay qorshaysato oo ay markaa ummaddu u celiso dakhliga dawladdu ama revenue-gu wuxuu ka yimaadaa waa cashuura haddii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalku uu horumarsaneen naftirkeeda dawladdu meel ay cashuur ka helayso ma jirto marka ahmiyadda koowaad dawladdu waxay siinaysaa in dadka canshuurta laga helo ay kobciso fursadaha ay ku heli lahaayeen iyaga dakhli intaysan bixin canshuurta marka waxaan xoogga saaraynaa sidii loo horumarin lahaa ganacsiga iyo maalgashiga dabcan dhaqaalaha iyo ganacsiga farqi baa u dhexeeya luqadda Soomaaliga isku soo laabataa dhici karta marka waxaan aad u kobcinaynaa maalgashiga iyo ganacsiga si dadkeenna ganacsatada ay dakhli u helaan dawladduna dakhligaas ay canshuur uga hesho waxaa kaloo dawladdu qorshaheeda ka mid ah in ay dakhliga hadda ay hesho wuxuu u badan yahay canshuuraha ka yimaada customka inay hesho sida halka laga sheegay canshuuraha indexka loo sameeyey inay hesho dakhliga kala duwan ee canshuuruhu u qaybsamaan intii hadba suuragalka ah custom duty-gu waa qayb ka mid ah laakiin waxaad ogtihiin canshuuruhu qaybo kale badan bay leeyihiin waxaan rajaynaynaa qaybo yaryar oo la qaado waa jiraan laakiin dawladda Puntland waxaa qorshaheeda ka mid ah inay kobciso dakhliga ka soo gala qaybaha kala duwan ee canshuuraha ee dalku leeyahay markaas waxaa sahlanaanaysa qorshaha horumarineed ee dawladdu ku talagalka dhinaca dawladda ka imaanaya haddii ilaahay wuxuu halka ka sheegay wakiilkii qaramada midoobay u hadlayay waxaa la yidhahdaa sustainable development goal ama lacagta lagu bixiyo arrimahaas inay shardi u tahay inay dawladdu iyadana qayb ka qaadato yacni barnaamijyada dakhligaas dalka Soomaaliya ama Puntland ma helayso haddaysan qayb ka mid ah iyaduna ay ka qayb qaadan sida ku cad qorshayaasha miisaaniyadda dawladda boqolkiiba 2 ayaa tacliinta iyo caafimaadka ku baxaa leeyahay inkastoo buug ahaan intaa ka badan ay mararka qaarkood ugu dhigan tahay laakiin haddana waxaa ogaataan waa maamulka keliya ee kharashkiisa xagga dawlad socodka daboola Puntland dhinacaas marka laga fiiriyo
waxaa la oran karaa waa wax weyn bay qabsatay dhinaca kale marka laga fiiriyo requirements-kii laga rabay ma ay gaari karto waxaa kaloo kala duwan arrimaha maxamed xasan barre uu ka sheekeeyey oo Soomaaliya Paris Club u tagi jirtay qorshayaal bay samaysan jirtay lacago ama deyn ah ama grant abay doonan jirtay laakiin kuwa hadda hay'adaha laga doonayo labadii midna ma aha waa lacago humanitarian iyo waxyaabo yar yar oo loogu talagalay dadka in lagu gargaaro marka qorshe horumarneed kuwa ma lagu dhis karaa su'aasha maanta يعني Soomaaliya ilaa iyo hadda ama halka ha joogta ama xagga ha joogaane wixii Paris Club loo tagi jiray ilaa hadda lama qaadan sababaha ugu weyn waxa weeye deemankii hore oo wali taagan oo aan dalka laga cafi haddaan marka habkii deyn cafinta laga hormarin habku dalka u ekaanayo markuu deyntaas ama laga cafiyo ama dib loogu dhigo uu deyn soo qaato sidee u qorshaysanaya waxyaabaha mararka qaarkood dadka isaga khaldamaan waxaa ka mid ah marka aan ka hadlayno dawladda dhexe dooda ugu weyn oo annaga hadda internationalka iyo dawladaha danaya aan la galna waxaa ka mid ah intaan deynta la cafin intaan dalka loo furin albaabadiisa inuu soo qaato lacag mar labaad ku sondanaan doonto Soomaaliya waa in laga heshiiyaa dhaqaalaha dalka soo gala oo aan ahayn midka dad siiya ama UNICEF ama dawladda waxay siinaysaa iyada jirta laakiin mid magaca Soomaaliya lagu soo qaadanayo oo ku noqonayo deemankii hore ama deeq loo allocate gareeyay haddaan la ogeyn awoodaha lagu qaybinayo annagu ma dhahayno percentage saasaan laakiin waa in la helaa hab nidaamka federaaligu waa hadda isu bedelay waagii hore maxaa xasan barre ka sheekeynaya dawladda dhexe jirtay cidna lama tashan jirin sida ay la tahay dalka iyada mas'uul ka wadahay laakiin hadda nidaamka federaalka dastuurkiisu wuxuu farayaa habkii hore ka duwan marka haddaan la horumarin qaabka qorshaha dalka loo hagaayo wixii laga hadlaa marka waa iska cadfad inay jeclayso wax macnaa sameynayso xoogaal fiican baan u ahay wasaaradda qorsheynta soo joogay wax badan oo khariban baan ogahay waxa loo baahan yahay dalka Soomaaliyeed hadduu rabo inuu heshiiyo inuu run ku heshiiyo runtu waxay noqonaysaa in wax walba ay cad yihiin wadooyinka loo marayo oo aysan ahayn wax mugdi ku jira birri ka maalinna waxa la yiri wixii la isku ogyahay haddii ayba ka timaado xataa canaan baa ka imaanayso wixii la isku ogaa waa khaldanaan karaan mararka qaarkood laakiin la iskuma canaanayo nin walba uu ogyahay waxa meeshaas yaal waxaan aad u rajaynayaa dadka reer Puntland inay hoggaan ka noqdaan maadaama 22 sano deganaansho siyaasadeed iyo mid amni iyo isku dayo horumarineed oo ay ka muuqato Puntland tishalay iyo maanta marka la isbarbar dhigo oo xaqiiqo ah waxaas waxa la rabaa wadooyinka ay u mareen inay la wadaagaan dadka kale ee walaalahooda oo wadadaas hadda maraya waxa muhiim ah aqoonyahanka iyo way aragga iyo dadkii shaqadan soo qabtay ee Puntland jooga in uu sawdkooda hoos u dhicinay uu kor u soo baxo oo waxa qaldan ay ka hadlaan si wadooyin aan soo marnay dad walaalaheena ee dib ugu kufkufin hay'ad haddii kale waxay noqonaysaa bakhaylnimo Soomaa waxaan u baahanahay waxa saxda ah oo horumarka lagu gaaray oo ah isku tashiga iyo wada tashiga iyo u sabirka marxaladaha kala duwana inaan la wadaagno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa muhiim waxa aad u soo badanaya dadka dhalinyarada ah oo khibradoodu aqooneed ay u badan tahay la shaqaynta hay'adihii samafalka dalka joogay inay maamulada dawladda ku soo badanayaan dadkaas inta badan habka hay'adaha kan waa hay'ado gaamuray oo almost 70 sano jiray sida ay u dhaqmaan oo muhiimad kooban leh iyo dal kala tagay oo la rabo in dib loo isugu soo celiyo sida la rabo in loo maamulo farqi badan u dhaxaynaysa waxa laga rabaa Soomaalida generationka cusub ee energy-ga haya ee aqoonta haya inay ka dhursugaan oo qayb ka qaataan jiilka ka horeeyay oo runtii hogaaminta siyaasadeed Puntland waxay caan ku ahayd
generation baa generation bedela generationka hore isagoo hawsha ku jira waa kan kale soo gaaraa si uu khibraddii iyo aqoontii iyo aragtidii uu wada uga qaado oo kan kale uu sii gaarsiiyo laakiin waxaa dhici karta deegaanada kale inay fursaddaas helin hadda laga yaabaa inay dhib ka soo doogeen wixii meesha joogay inay dad dhallinyaro ah oo markaas taladii aan khibrad badan hayn inay noqoto waa dadaalayaan wax badan oo runtii isku dayaa bay samaynayaan laakiin haddana mararka qaarkood xamaasadda dadka ka indhatiraysa wixii birri kugu soo noqon lahaa inaadan maanta ka shaqayn waxaan u arkaa inay tahay caqabad hadhow kugu soo noqon doonto oo u baahan inaad hadda iska muusto runtii arrimaha halka laga sheekeeyey aad bay muhiim u ahaayeen qaybo badan oon qorshaha ku saabsan laakiin waxyaabaha aniga aan aad uga dardaarmayo waxaa ka mid ah si aan u halno dakhli aan ku xisaabtami karno wax soo saarka inaan kor u qaadno qodobada muhiimka ah oo qorshahan lagu daraayo waxa weeye sidii dadka wax soo saarka leh loo kobcin lahaa sidii loo kobcin lahaa dadka wax soo saarka badda leh kuwa xoolaha leh kuwa beeraha leh haddaynan dakhli abuurin wax aan qorshaynayno waa iska ruwaayad qodobkaas wuxuu yahay qodob muhiima oo u baahan in wakhti la geliyo waxaa kaloo muhiim ah in qorshaha la samaynayo lagu daro dabcan budgetkeenna marka la tilmaamayo waxaa la qoraa actualka expectedka la malaynayo inta laga malaynayo in dekeduhu naga soo galaan iyo kharashkiisa dalkan waxaa soo gala miisaaniyad horumarneed oo hay-aduhu leeyihiin baa jirta waxaan jeclaan lahaa in qorshaha marka la samaynayo hay-adaha halka jooga laga codsado miisaaniyaddooda ku talagalka ah ee ay rabaan inay puntland ku fuliyaan hadda ka hor mar aan waraystay unicef oo kaleeto last year waxaan filayaa $35 million oo investmentii halka gelisay dowladdu uma qorno safta jirdareen in la mida markaan calculate gareeyey waxaa ii soo baxday wax 200-300 milyan ku dhow oo hay-adaha ka timaad inay dalka gasho dadkana aan u xisaabsanayn marka evaluationka la samaynayo muxuu noqon doonaa marka waxaan rajaynayaa marka qorshahan la samaynayo baarlamaankuna inuu u bislaado oo waxyaabaha currency-ga iyo development budgetka in la isbarbar dhigo oo la present gareeyo oo mid walbana gaarkiisa loo xisaabiyo haddii hadda ay dowladdu tiraahdo miisaaniyaddeenna oo 400 milyan oo hadhow la yidhahdo xaggee geliseen waa in la kala ogaadaa inta ay dowladdu toos u maamulayso iyo inta ay hay-adaha ka filayso marka la controlayo ama la korjoogtaynayana dabcan wuxuu yeelan doonaa indicators ama asaaliib ka duwan marka dowladda hawsheeda la control doono laakiin waan u baahannahay budgetkeenna soo socda ruuxadiisa inay ka muuqato si dadka ay u ogaadaan dalkan waxa galaya aysan noqon markii la yidhaahdo 76 milyan wey sanadkii iyo marka la yidhahdo 400 milyan wey is different realityguna waa saas maxaa yeelay horumarkan badan oo socda iyo lacagta aan sheegno in islaakeen nin walba u jeeda lacagta horumarineed ee dalkan galaysa waxay u baahan tahay iyada naftirkeeda in uu jiro xiriir qorshuhu oo dhinacyadiisa kala duwan ay ku xiran yihiin waxaa intaa dheer in ganacsatada iyo cid kastoo dalkan maalgelinaysa sida aan ku soo bandhigi doono qorshaha shirka maalgashiga ee puntland waa in dowladdu ay ka leedahay qorshaha maalgelineed ee dalka suu u soconayo oo nin walba intuu yimaado meeshuu rabo oo guri ka dhisan siduu rabo iska yeeli waxaan u baahannahay in la hago oo dowladdu permissionka ay siinayso inuu ku cad yahay qorshaha dowladda iyo waxa u soconayo sektorka xanaanada xoolaha hadda productionka xoolaha aad runtii kor ugu kacay khaasatan dhinaca caanaha laakiin wuxuu u baahan yahay qorshe dowladeed oo wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha ay wada qorsheeyeen oo la garan karo
intee baan u baahannahay sanadka soo socota inaan degaan ka dhigno degaan degan oo degaan beeraley ah intee baan rabnaa daaqsinta socoto inaan ka dhigno waa inaan kala garanayno haddii kale waxaa isku dhacaya qorshayaashii dawladdu wuxuu noqonayaa inaan waddanaan qorshe lahayn buu noqonayaa marka dambe waxaa ka dhalanaya colaado sida hadda muuqata way dhici karta dhul daaqsin kii dadkii oo reer guuraa u habaysan inuu nin dadaalaya oo maalgelin badan geliyo inuu yidhaahdo waxbaan beerayaa oo riig baan qodayaa oo waa dhinac kale waa dadaal jira laakiin waxaa la rabaa qofka maalgelinaya inuu indicators haysto la yidhaahdo halkaas baa lagu ogol yahay intaasaa lagu ogol yahay sanadka intee investor baa loo ogol yahay inay xoolaha ka shaqayso intee investor baa loo ogol yahay inay badda hadda dad badanaa waxay leeyihin maraakiibaan soo kaxaysanayaa oo ruqsad isi intee markabaan rabnaa inaan horta badda gelino we have to plan ya marka waxaan u baahanaa qorshayaasha la dhigaayo inaysan noqon keliya sida uu ahaan jira weel deeqbixiyaasha lagu baryo kuwa hore saasay ahayn ficlan waxaa lagu qoraa deeqbixiyaasha si aa wax uga baridid wax maaragtay aa is leedahay waa laga helayaa qorsheen waxaan rabnaa inu intaa ka ballaarno muhiim ma aha boqolkiiba 60 la gaar aniga hadda marka halkan u dhigaayo waxa ay muuqato waxa la dhigay inay ahaayeen wixii hay-aduhu bixinayeen alignment looga dhigay dowladda afrikaan oo 60 boqolkii gaari karta qorshayaasheed ma jiraan maanta xayir dakhligeeda waxaan rabaa aniga in realistic la noqdo oo la yiraahdo waxa in la gaaro kulli muhiima inaa wax qorshaysid macnaheedu ma aha inaa wada gaartid saas ma laakiin nin meel u socdo yaqaanaa hadday dhacdo xataa 5 sano in soo socoto inaad qadaban weydo muhiima mid kale oo cusub inaad dhigtid kii hore revise ku sameynaysa intii aad fuli weyday isaga soo celinaysa hadana laakiin waxa u socotaa meesha taqaan qorshayaasha qaybtood waa loo 5 sano loo dhajiyo oo yaraan waa 30 sano waa in strategic plan jira meesha dalkan u socdo sida hadda dalkeenu uu kobcayo waxaan ogahay dad badan oo niyad haya oo dalka maalgeliya inay hantidoodu ay ku dhunto hal mashruuc oo isku mid ah dadku wada maalgelinayaan markaas waxa ka dhacaya in maalgelintii ay wada khasaarto dan roolkii dawladda meeshaas waa ka maqan marka dawladdu waxa la rabaa dalka maalkiisa dadka wada mas'uuliyadda ka ah waa inay u sharaxdaa sida ay uga manaafacaadsanayaan hay'adda dawladdu waa public office waxay u shaqeynaysaa waa dadka ay u shaqeynaysa ma aha inay ciyaalada iskuulka geyso kuwa jirin daawaysa kaliya waxaa la rabaa dadka hantida leh hantidoodan inay ilaaliso qorshayaal ay ku horumarayaan inay siiso haddii aan kobcinno dadkeena hantiilayaasha leh waxaan kobcinaynaa dakhliga dalkeenna waxaana suuragal ah anigu aan qabaa in la heli karo markaas dadka Soomaaliyeed waa qani for the last 60 years oo dawlad Soomaaliyeed marna ay dawlad shaqeynaysaa marna ay burbursanayd dalkan dadkiisu kulli waxay u hanqal taagayeen deeqo ay dibadda ka helaan dalka Soomaaliya baaxad ahaan waa dalka 24aad 200 oo dawladooda caalamka ka jiro 150 wax ku dhow ayaan ka dhulweynaa saas lama socdo misaal lama socdo dalka 42 kaga jira xagga baaxadda adduunka dalalkiisa dalalka ugu qanisanna waa ka mid yahay marka dabcan siyaasadda wareersan dowr bay ku leedahay Puntland waxyaabaha laga sugaayo qorshaha rabta inay ku darsato maaha iyada kaliya inay isku filnaato laakiin qorshayaasheedu waa inay ku darsataa sidii dalka Soomaaliya deganaanshihiisa qayb uga qaadan lahayd marka waxaan rajaynayaa qorshayaasha horumarneed naftirkooda waa inay ahaadaan qorshayaal integrated ah la ah regionka nagu xeeran مثلا markaan ganacsiga iyo horumarkiisa iyo dhaqaalihiisa ka hadlayno waad ogtihiin marketka Boosaaso waxa distributionka ugu muhiimsan oo ah ilaa beledweyne waa corridor u baahan iyada naftirkeeda kobcintiisa in fakar laga yeesho dalka Itoobiya oo aan jaarnahay oo waliba nasiib aan u yeelanay inta soo xigta dad uun diilintu ay kala leexisay dad isku mid ah oo isku Israel ay yihiin oo wada Soomaali ah
waa fursad kale iyadana u baahan in la taarget gareeyo sidii ay dawladdu waxay xoog saari doontaa Tuurdibi iyo Garacad ay u noqon lahaayeen labo outlet oo hor leh oo qayb ka qaadan doona kobaca dhaqaalaha ee Puntland iyo Soomaaliya waxaan rajaynayaa sida Maxamed Xasan Barre sheegay in qorshayaasha horumarneed dhulkan barwaaqada la yiraahdo dad kuma nool intii la yiraahdo sidii hadda uu ka sheekaynayo jidkii iyo dekadii inay mar labaad Puntland ku dhicin oo dadkeeda ay xoog saaraan deganaanshaha iyo kala dambeynta iyo camiridda dhulka waa very important haddii dadkeenu xataa yaraado oo dhul fiican aan haysano dad kale oo badan aan noo imaanayo wax dhiba ma leh imaaraadka boqolkiiba 10 ay ka yihiin ummadda ku nool 90% inta kale waa dad dibadaha ka yihiin daas waa ay u noqotay wadamada hadda iconka oo aad loo yaqaano Dubai marka haddii dhul iyo khayraad fiican haysano waliba Soomaalida iyo Khaliijku waa isku dabeecad doon yihiin dad shaqeeya ma ahano kafiila iska noqonaysa dad si fiican u shaqeeysa wax soo saarka ma jeclin Soomaa yaa nin walba toon u shaqeyso iska keesan karaa laakiin waxay u baahan tahay halka sir oo wadamadaas aniga Khaliijkan ayaantan ku noolaan jiray hal sir ay leeyihiin boqolkiiba 10 haddaad rabtid inaad dadka noqoto 90 keetii boqolkiiba 10 waa inay ka shaqeeyaan inay dalka amnigiisa ka shaqeeyaan haddaad tiraahdo amniga kama shaqeynayo dadkana waa isku furayaan dadala leedahay maaha kaas you cannot control iyo weliba waxaan aad ugu digayaa jiilka cusub fahamka siyaasadda ay ka qabaan sideedaba siyaasad waa maamul inaad fahamtaan way soo maaha annaga kelmadda siyaasa aan isticmaalno waa luqad carabiya asalkeedu waa siyaasa waa maamul way in dadka wanaagiisa la maamulo way soo haddaa siyaasadda u fahamtid wasiilo opportunity lagu gaaro waad khaldamaysaa qof isaga taageeraa maxaa yeelay waxba u siiyey waxba kuma siin dalkan iyo dadkan adaa iska leh hadduu shaqo ku siiya xataa isaga kuma siin opportunity-ga adaa iska leh xaqa u leeda soo ma qofku inuu aaminaa rabaa dalkiisa dulkiisa kuwa kalea waxay leeyihiin shiraraan qabanaynaa lacagaha xamarna oo laga soo diray ma fahmi la'ahay jiilkan cusub iyo odayaal mararka qayrkood yacni runtii waxaa socota ma garanayo meelay wax ka socdaan dadkooda qof kow inuu naftiisa ku kalsoonaado laba inuu dalkiisa ku kalsoonaado khidmada aad qabanaysa shaqada aad qabanaysa qof uma qabanayso horta inaad fahamtid waa ya qof uma shaqeeyo inuu shaqeeyana waa ku khasbay maxaa yeelay bulsho meel isugu timid haddaan si collective loo shaqeeyo casrigii nin walba uu duurkiisa maxaa la dhahaa beel walba meesha degi jirtay waa laga soo gudbay Soomaa annaga qolkaan yar isku soo ururinay yaa noo yeertay soo annaga isuma soo ururin haddaan nidaamkii ilaalin weyn iyo wada noolaanshaha ka warramo ee adkaanaysa waxaan rajaynayaa dadka reer Puntland anoo fursaddan uga faa'iidaysanaya inay noqdaan dad waqti badan geliya waxa la yiri waa hadda laga sheekeeyaa waddanka dhan waa fadhi ku dir Soomaa waxa la yiri dadkii wax oran lahaa aan noqon hadday rabaan dad kale naga sheekeeyaan iyaga oo taalaabo laakiin dad waxa la rabaa injaazaad wax la qabanayo oo muuqda inaan ka shaqeyno hadna la yiraahdo waxaas qabteen haddii la oran waayo annaga markaas waa sheegi karnaa إعلانك وحنا قبنا وكعلنين لكن وحنا مهم تاريخ ضد كان يو آيها بنتلان إن ضد كولا شقيان كوح كار كمان شقيان كرتو ضد كا دولة وشقية ضد كدولة وشقية دولة دي ما هرتاس اللي فهموها وشقية صوصاص ما أنا الدولة دار وشقية لكن أنا الدولة دي ما haddii dadka banaanka jooga ay u qaataan inay dad dawladda yihiin iyagana aysan dawladda dadka oo dhan ba sektorka ka shaqeeya ama xafiis dawladeed ka shaqeeya ama ministarka ka shaqeeya ama midba ha u shaqeeyna naftaada u shaqeyso intaad 30 ariya ka haysatid halkaa ku dhaqo included dadkii iyo dawladdii waa ka mid shaqa u haysa dadka ugu faraha badan ee hadda Soomaaliya Puntland shaqada u hayo waa dadka miyiga jooga ariga raacaya ariga aan dhoofsano dakhliga adag ka keeno canshuurta aan bixino iyo ganacsiyada wuxuu ka yimaadaa boqolkiiba 70 wuxuu ka yimaadaa
livestock aan dhoofin idan hadday dadkaas dawladda inayna u shaqeyn isu qaataan ama annagu aan u qaadanno waa fahamyada khaldan ee dalka ku soo badanaya oo nidaamka dawliga ah ka dhigaya inuu hanaqaad sameeyo muxuu Soomaaliya dawladnimadeedu u hanaqaadi lahayd waxa ugu muhiimsan waxa waaye fahamka dawladnimada laga qabalaa ayaa wuxuu galay ciriiri waxaan u baahanahay dadka way aragga leh inay u sheegaan dadka fahamka dawladdu wuxuu yahay public office waa ina adaad qofka isaga doorto Soomaa by choice maaha adaad dooranay Soomaa anu private sector ka shaqeeyay ana ka imado kan doortay in dadka ina u shaqeeysid waa muhiimada ina fahamto hadaa artiska ina u shaqeeysid waa shaqeeysan laakiin kulliyan dawladda hadana wada shaqeynayna laakiin dabeecadaha kala duwan marka xafiis dadka ka dhaxaya joogtid marka kaliya tahay iyo marka shirkad joogtid saddexda farqi u dhaxeeya shirkadda ruuxadeeda u shaqeynaysa waa wax dad wadaagaan Soomaa waxay ka yar tahay wixii dadku wada wadaagay dhan laakiin iyadu naftirkeeda waxay leedahay faham ka duwan marka kaliya dukaankaaga aad gadanayso saacada rabtidna xiranaysa farqiga u dhaxeeya waa arrin marka waxaan boorinayaa qorshayaasheenu inay qayb ka ahaadaan dhinaca horumarinta bay wasaaraddan u xil saaran tahay waxay soo bandhigayso waa qorshaha horumarinta ee dalka laakiin dawladdu mar dhowna waxay soo bandhigi doontaa aragtida qorshe kuma ma oran doono laakiin qorshaha horumarin ma dhahayno laakiin waxaan oran doonaa strategic plan-ka dawladdu ay ka leedahay siday bulshada u horumarin lahayd siday dawladnimada iyo governance-ka u horumarin lahayd siday u horumarin lahayd xataa aragtida siyaasadeed ee dalkan Soomaaliya ay ka leedahay oo ugu horeyso in federalismku uu noqdo arrin muhiim ah labo inay noqoto dalka siyaasadiisa marka la dhisaayo inay base u ahaato waxa la yiraahdo bottom up approach in hoos laga dhiso oo mid aan warhayn intuu taladii sare fariisto wixii dadkan soo dhistay uusan dudumin ciladaha hadda dawladda dhexe ka soo baxaya waxa weeye qof baa wuxuu ku baraagtay fiiri nin hadda la dhaho hadii la dhaho nin jaamacad ka soo baxay hadda qof qal ka warrama soo khatar gelin maayo qofkaas oo aanan practice qaadanba theory kaliya dawladda Soomaaliya hadda in la iska yimaado aad u sahlanaatay qof aan weligiis public office soo marin ayaa madaxii u sarreeyo noqon kara markuu noqdo waqtiga ka qaadanaysa inuu fahmo habka dawladnimadu u shaqeynayso marka waxa laga yaabaa qorshayaashii uu hay'ad u shaqeyn jiray intuu kala yimaado hadda tubahan la sheegayo kale waa sectors development plan hay-aduhu waxaas ay leeyihiin laakiin dalalku waxaas ma lahaan karaan is different runtii hay-adaa ka timid waxaa ku arki jirtay wixii soo min guurisa waxaa la imaanaysaa ummaddanoo khatarteeda leh marka runtii waxaan u baahannahay de xaqa lagama xishoodaa la yidhi Soomaa horta is waa kale xishoonaynaa macnaheeda ma haynaan cid mucaaradada sida dadka wad u fahmo laakiin wixii xaqa waa la sheegaya xaqiiqada saas weeye qofka xaqa loo sheegay inuu qaataa la rabo muhiimaddu waa intaas shakhsiyan aan waan ogolahay wax kasta oo dhaliil ah oo loo sii jeedo anay anfacaysa oo arki maayo ceebayn uma arkay sida marar badan sheegay dhaliisha qofka wax garanaya isaga anfacda marka waxaan rajaynayaa dabcan ku talagalkaygu ma ahayn inaan speech intaan la jeediyo laakiin uu ila yara fogaadaba waxaan saaray fursadda ka faa'iideysto dhalinyarada yaryar ee elementary ku jirta role bay leeyihiin ilaa ay qofka weyn ee mararka qaarkood yiraahda iska dhiga inuu yahay hawlgab laakiin qofku ilaa ay saacada ugu dambaysa waa in uu la yimaado passion ah inuu dadkiisa u shaqeeyo waa uga mahad celinahay Maxamed Xasan Barre muddo dheer dalka Soomaaliya diyaar u ah inuu shaqeeyo weli uu taagan dad isagoo noociisa badanna waa jiraan marka waxaan rajaynayaa in aan runtii noqono dadka u shaqeeya aad baan iga mahad celinayaa runtii wasaaradana waa ku amaanayaa sida ay dadkan isugu keentay uga qayb gelisay in qorshaha lala qorsheeyo hadhowna in lala fuliyo oo ay ku kormeerto iyadu ma aha implementation dabcan wasaaradaha ayaa fulin doona sida uu dawladdu u dhisan tahay laakiin waa qofkii qorshaha keenaa kormeerka iyo la xisaabtankana laga rabaa iyaduna waxay isku xiriirin doontaa si kobaca dhaqaaluhu si qorshaysan u dhaco
dadka doonariska ee wax bixin doona iyo dadka wax fulin doona iyo siday u kormeeri lahayd inay u coordinate garayso way roolkooda waan uga mahad celinaynaa roolka ay qaadato wasaaradaha kalena waxaan rajaynaynaa inay si dhow ula shaqeeyaan marka qorshaha ee la qorayo iyo diyaarintiisa aad baan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum